بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلنتي وعن أو نكسن إذا لهانتي بداوديال ميل البعد نقدر ونيسان كسر دواد برامج ضد علمية ده ويسوق قبل قبسي وزارة هواينك أرمها قيسك إيو حقوق الإنسان كدولة جولة كتشوبنا برامج كان قلبتها وحن درد كسر الدنيا من كدو الدنيا شرعي عالمي تشدلك وحن برامج كقلبتها مرتي أو إغلاق بقانون دونا قعنت إذا بدح وسعدي عبد الله جيت oo kamid ah howlwadeennada hay'adda daraasaadka SWSC oo isla markaana kamid ah gabdhaha u ololeeya xuquuqda gabdhaha waxa sidoo kale ka sokeeyo oo dhinaciga bidix si toos ah u fadhiya mudane aadan Cusmaan Qalooshe oo isagu la taliye u ah wasaaradda cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubbaland gacanteeda midig waa ustaad Kamaal Maxamed Ibrahim oo ah gudoomiyaha xarunta tababarka iyo cilmi-baarida Kasmaal oo isaguna barnaamijka galabta inagala qayb qaadan doona jirdilku macnayaal badan ayuu leeyahay dhinacyo badanna waa uu ka imaadaa sida aan ognahay waana arin inta badan ka hor yimaada ama dhanka ah qawaaniinta caalamiga isla markaana kamid ah waxyaabaha aadka loogu ololeeyo ama xuquuqda insaanka ay aadka uga hadlaan marka ay timaado maxaabiista iyo dadyaga kale in badan laga yaabo in laga tabar sareeyo marka barnaamijkeena si toos ah ayaan u guda gali doonaa waxaana su'aasha koobaad siin doonaa Marwo Sacdiyo waxaan rabnaa bal marka koobaad in aad si guud maadaama aad ka shaqeyso arrimaha xuquuqul insaanka laga yaabo in aad u dhunduleesho caqabadaha laga yaabo in ay la kulmaan ama ay la soo darsaanba qaybaha kala duwan ee bulshada bal waxaad kala socoto waxaad in yar nooga tilmaantaa ama nooga qeexdaaba jirdilka noocyadiisa kala duwan aad la kulantay ama aad aragtayba intii aad la shaqeynaysay inta aad ka shaqeynaysayba hawlahan بسم الله هذا يا دوم هاتسنت هاي ولالكي وحنو ما هتعلنا وزارة هواينك حقوق الإنسان كا هوشان عاد ودر درجلين سيدا في عنو ودوانو ما هتعلنا يا تي في الدولة جولات كجبلان سيدا حبسمي ذا لهوشان وضو مركان لهنو جرديل أنت بدن أنا قد جرديل مركان لهنو أما تعدي قد جرديل كوحدة كلوجستو هواينك كلوجستو إنه دور نوعي وكلا بحا mid waa mid muuqdo nabara muuqdo qofka gaaro midna waa mid maskaxiyan qofka looga geysto uu arko in maaragtay la gumeysanayo kale to ama laga awood badan yahay kale yaani u dareemo maskaxiyan inta badan laakiin Soomaalida jirdil markay dhahdo waxay u taqaanaa nabarada muuqdo mid ka qarsoon waa asagana jirdil ama saameyn kule qofka bilaadanka hoos u dhigo aad baad u mahadsantahay Marwo Sacdiyo qodob muhiim ah ayaan isleenahay wad ka dhawaajisay waana u iman doonaa saameynta laga yaabo inay ka dhalato jirdilka mudana aadan waxaan rabaa bal si guud inaad noogu dulmarto bal si waxaad ku ogtahay adiga noocyada kala duwan ee jirdilka bismillaah waan u mahad celinayaa ustaad ka noo qaybinayo dooda iyo wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka barnaamijkan soo qaban qaabisay iyo muuqbaahiyaasha la joogo sida Jubbaland TV iyo saxaafadda qaybaheeda kala duwan marka koowaad sideedaba jirdilka horta waa fal guracan oo lid ku ah nafta qofka bini'aadanka taas oo ku qeexan laguna diiday xeerarka qaranka u degan shariicada islaamka iyo xeerarka heerka caalami ah okay falalkaas way noocyo badan yihiin marka noocyada jirdilka marka la soo inta badan marka analysis lagu sameeyo inta badan waxa loo kala qaadaa saddex ay noqdaan mid waxa la dhahaa physical ama qofka jirdil muuqdo oo dhaqara ku yaala korkiisa wax ka muuqtaan waa wax cad oo loo jeedo mid ka labaad wuxuu noqonayaa qofka emotional in qalbi ahaan moral ahaan qofka loo tooja gareeyo loo dhibaateeyo taas oo waxa jirta inta badan aan maqashay moogiye farax xumeyn iyo faala xumeyn farax xumeyn qofka marka la kufsado kale iyo faala xumeynta inta badan waxay keentaa qofka in uu emotional tooja ay ku dhacdo ugu dambeyntii waxa jirta inta badan mid la dhaho instrumental
instrumental tojaga qofka in la jirdilo iyadoo wixii qalab loo adeegsanayo ama hala koronteeyo ama way fara badan yihiin macnaha instrumentalka noocyo fara badan bay iyad naftarkeed ayaa loo sii mafaga FGM ka soo galaa waxyaabo kale oo fara badan fircooniga hawlo kale marka sideedaba marka laga hadlayo barnaamijkan noocyada kala duwan ee jirdilka anagu si guud baan uga hadlaynaa inaan wixii qeexno noocyadii ay kala ahaayeen jirdilka inaan marka hore aan aftiimino anoo aad u ixtiraamayo walaashay Sacdiyo iyo Ustaad Kamaal oo hawlahan aad iiga sii dhunduleelo marka intaasay u kala baxaan wixii kale qodobada kale dib aan ka fiirnaa insha Allah aad baad u mahadsantahay Ustaad Kamaal xagagan soo yar aadaynaa bal waxaan rabaa haddii aad wax ku darayso lafteeda waan soo dhaweynaynaa bal noocyada jirdilka sida ay noqon karaan waxaad sidoo kale inoo raacisaa bal wacyiga bulshada ama bulshadeena aan ku dhex noolahay ee Soomaaliyeed heerka uu ka gaarsiisan yahay jirdilka in ku filan bulshada ma laga wacyigeliya ma ku baraarugsan tahay bulshada qudhaanteeda bismillaah waan kaaga mahadcelinayaa daadiyaha barnaamijka sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa honorable Aadan iyo marwadana laga qayb galaysa barnaamijka sidoo kale waxaan mahad balaaran u soo jeedinayaa TV-ga Jubbaland iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee Jubbaland markood waa si qeexana loo wada sheegay barnaamijka waxaan ka hadlaynaa kaliya waxay tahay jirdil muxuu yahay muxuu u qaybsamaa shuruuc caalami maxay ka qabtaa shuruuc caalamiga waxay ka qabto wax la wada yaqaan way 1949 waxa jira UN declaration UN universal declaration la yiraahdo oo 1949 la saxiixay waxay ka qabto jirdilka wax la yiraahdo torturinka waxa la yiraahdo international law iyo domestic law labadaba uu ka yaalaa international law dunidu wax isla waafaqsantaa jira iyo domestic law oo dal walba wuxuu gaar leeyahay marka si guud iyo si gaarba waxa la yiraahdo torturinka ama mafahmaysaa jirdilka mamnuuc ah si gaar marka soo fiirno dalkanaga ama mafahmaysaa wacyiga bulshada inta badan kuma baraarugsana waxaad moodaa dadka bulshada ka dhax shaqeeya waxa waaye waxay u badan yihiin 80% dadkii dhashay dagaalada wax ka dambeeyay inta badan dadka dagaalada wax ka dambeeyay cilmiga yar bulshada dunida lama haysano marka waxaa moodaa jirdilka iyo cilmiga aan u leenahay ka bulsho guud ahaan inuu aad u hooseeyo sidaas daraadeed marka waxaa dhici kara in caqabado badan halka ay ka yimaadaan inta waxaan kaloo raacin lahaa qaybihiisa honorable Aadan aad buu u faahfaahiyay si guud markii loo sheego physical torturing iyo mafahmaysaa psychological torturing inta kale iska soo hoosgalayaan waxaa la sheegaa torturing waxaa ka mid ah in aad qofku mafahmaysaa waxa la yiraahdo solitary confinement in qofku si gaar ah kaliya aad gooni u xirtid taasa waa torturing kamid ah torturing waa inaad qofku intaad qabatid tiraahdo kaliya halka fadhi taasa torturing ah wax mocking la yiraahdo jira sexual norms waxa la yiraahdo jira asna waxa way jirdilku kamid yahay mafahmaysaa shanin waxa la yiraahdo jira in qofku oo magaciisa la dilo jirdil kamid tahay in qofku mafahmaysaa su'aadan honorable Aadan qolosh sheegay qofku magaciisa la dilo la ceebeeyo wax shanin la yiraahdo lagu sameeyo idan waxay kamid tahay jirdilka iyo qaybo kale oo badan mafahmaysaa marka soo dhaw aad baad u mahadsan tahay mudane Kamaal iyo dhammaan ka qaybgalayaasha barnaamijkeena marka waxaan isdhihi karnaa in qeexitaanka guud markaan eegno in fahanka bulshada laga yaabo in sida ay u fahansan tahay jirdilka in uu ka balaaran yahay oo uu noqon karo jirdil iyo sidoo kaleba tacadiye kale oo loo geysto ruuxa dareenkiisa iyo maskaxdiisa intaba waxaan rabaa in Marwo Sacdiyo mar labaad kugu soo laabto bal waxaad wax yar inoo iftiimisaa saameynta laga yaabo inuu ku yeesho dadyowga laga yaabo inay la kulmaan tacadigan maskaxiyan iyo bal saameynta ruuxa ay ku reebi karto inta aad la kulantay iyo si guudba inta ay gaarsiin tahay heerka saameyntaas ruuxa heerkii gaarsiin kartaa saameynta ka dhalata بسم الله horta saameyntiisa way badan tahay waa sida sheegteen oo bulshada inta badan kuma baraarugsan oo ma arkaan dirdilka maskaxiyan markii lagu dhahayo qofka gaaray ilmihii yar yar oo kale to waa uu gaara asagana cunugii age-kiisa gaarin oo la shaqaaleysiiyo shaqada awoodiisa ahayn uu qaban karin loo diro kale iyadana waa waxa la dhihi karaa waa maskaxiyan wax ka gaari kara cunuga
jirdilka muuqdano markaan qeexno waxaan dhihi karnaa soo saamayn su'aasha okay marka saameyntiisa waxaa keeni kara jirdilka qofka markuu gaaro ama gabadha ninkeeda iyo kale uu dhib u geysto ama rag oo kale iyo dumarka oo kale waxaa jiro jirdil aan muuqanin oo kale oo loo isticmaalo korontada oo kale in rag xaniyaha oo kale ama gabdhaha naas oo kale dabcan waa jirdil aad u xanuun badan laakiin aan muuqanaynin haddana saameyn lahayn waxaan dhihi karaa inuu yahay wax bulshadeena ku jiro kuna badan haddana ku baraarugsaneen sidoo walaalkay sheego kale macnaha uu keeni karo qofka maskaxiyan uu dhimi kara aanan si fiican loo garanaynin iyo maaragtay in ay haddana jiraanbo dadkii lagu sameynayay haddana ku qanacsan yihiin magacyo uu qofka jeclayn oo kale loogu yeerayo kale hebel waa hebel jiis oo adii inta badan waxaa la dhahaa wuxuu ku soo arooraa un tacaddi un wax uu qofka rabin oo loo geysanayo marka way badan yihiin noocyo badan uu leeyahay aad baad u mahadsan tahay marwe sacdiyo waxaan hadalkaagii kala dhex baxnay in laga yaabo in caadi bulshada dhexdeeda in wax lala qabsaday marar badan laga yaabo inuu ka noqday waxaan daawadayaasheena la socodsiinayna mar walba haddii aad dareemaysaan in ay jiraan qodobo ku habboon inaan ka hadalno oo aad isleedihiin waynu ka tagnay waxaad nagula soo wadaagi kartaan barta ay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland ku leedahay Facebook waxaad sidoo kale nagala soo xiriiri kartaan ciwaanada shaashada idinka muuqda inta barnaamijka aan ku guda jirno haddii noqon lahayd Facebooka Twitterka iyo sidoo kale emailka mudana aadan waxaan rabaa haddii aad ku darayso wax aad dareemayso in su'aalihii hore laga tagay dabcan waan soo dhaweynaynaa waxaan rabaa bal in aad iyadana si guud noogu dulmarto qawaaniinta caalamiga ah waxa ay ka qabaan ama shuruucda caalamiga ah si gaar ahna dalkeena Soomaaliya ma ka mid yahay dalalka ku saxiixayba qawaaniinta caalamiga ah ee ka hortagaysa ama dhaleeceynaysa ama mamnuucaysa jirdilka ustaad waad mahadsan tahay barnaamijkan jirdilka ama toojaaga sidaba meelo fara badan ma loo kala harin shuruucda markaad fiiriso xeerka ciqaabta Soomaaliya penal code-ka loo yaqaano qodobkiisa 4aad qodobkiisa 440aad 460 468 wuxuu uga hadlayaa si faahfaahsan waa macnaha penal code-kan waa waxa la dejiyay xilligii dawladda hore ee Siyaad Barre Malaha marka ilaa ay hadda macnaha kaas standard ahna loo isticmaalo inta badan hadda markay xitaa markan barnaamijkan teera looga maadaama la baas garaynin argixisada inta badan markii arrimo ay si u yar adkaadaan waxay ku lifaaqaan penal code-kay la aadaan inta badan iyo aayada quraanka iyo waxba xogaa qof in marka toojaaga aan u soo noqono wuxuu ku qeexan yahay markaad fiiriso professional constitution-ka waxa jiraan sida legal framework international framework iyo macnaha iyo penal code-ka dhammaan had markaad fiiriso professional constitution-ka federaalka Soomaaliya article 15 markaad fiiriso si faahfaahsan bay u qeexaysaa markaad fiiriso maxaan ku dhahaa xeerka Jubbaland professional constitution-ka Jubbaland ay leedahay article 10 article 11 qodobka 10aad iyo kan 11aad waxay u qeexayaan si faahfaahsan waxa macnaha laga qabo barnaamijkaas sidii laga yeeli lahaa marka ay noqoto legal framework toojaaga ka dhashay macnaha sidee loo wajahayaa markay noqoto macnaha ma ahan wax mugdi ku jiro dastuuriyan markay noqoto kolaba wixii diintana culimada joogtaa oo ayaga noo faahfaahin doonaan laakiin markay noqoto dastuuriyan xeerka sharciga waa midka weyn waa shariicada islaamka laakiin waxa jiraan xeerar hoose oo inta badan taas fasirayo markaad fiiriso legal framework oo national legal framework oo markaad fiiriso heer qaran international legal framework markaad fiiriso maxaan ku dhahaa penal code-ka oo qodobada had aan ka dhawaajinay dhamaantood waxay u qeexayaan si faahfaahsan waliba waxay si aftiiminayaan markaad fiiriso hadda xeerka penal code-ka kale markaad fiiriso wuxuu qodobkiisa 96 ee xeerka ciqaabta qofka jirdilka geysto wuxuu mudanayaa ciqaabo aan ka yarayn 10 sano
qof baa eedaysane xirnaa oo eedaysane ahaa ilaa ay maxkamad ka xukunto haddii jirdil loo geysto macnaha ciqaabaha ka dhalanayaan waa si fiican buu qodobka 4aad markaad fiiriyo qodobka 440 markaad fiiriso wuxuu aad buu u faahfaahinayaa marka waxyaabahaas dhan waa waxyaabo ku cad maxaan ku dhahday xeerarka u yaallo heer caalami iyo heer qaran intaba aad baad u mahadsantahay waxaan u gudbaynaa mudane Kamaal bal waxaan rabaa in aad isu keen raaciso diinteena islaamka iyo sidoo kale dhaqanka guud ee Soomaalida ama bulshadeena Soomaalida ay ku dhaqanto labadaba waxay ka dhahayaan qodobkan jirdilka mar labaad waa mahadsantahay markaad si guud u fiirisid diinta islaamka ama maxaa ka dhaxeeya daan diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaaliga maxaa ka dhaxeeya Soomaalida dhaqankeeda dhaqanko idil waa diin socda bulshooyinka kaleeto xitaa bulshooyinka carbaha waxaad arkaysaa dhaqankii wuxuu u baahan yahay in lagu dabaqo diintii anaga laakiin diintanada waxay ku dabaqan tahay dhaqankii islaameed marka kaliya cilada jirtay waxay tahay dhaqankii uu wanaagsan yahay diinta islaamka heed waay shuruucna wana qoran yihiin heer Jubbaland heer federaal iyo heer international wana qoran yihiin maxaa jira kaliya cilada jirtay waxay tahay in la practice gareeyo taana bulshada waxay u baahan tahay ma fahmaysaa in loo sameeyo wacyigelin bulshada wacyigelin loo sameeyo u baahan tahay ama dawladda ama waxa la yiraahdaa diin islaamka waxay ka qabto diin islaamka dadana xadiis waxa jira uu warinayna Nu'man bin Bashir wuxuu leeyahay mathalu al-mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadin wahid idha ishtaka minhu 'udwan tadaa'a lahu sa'ir jasadi bis-sahri wal-huma no islaamka mu'miniinta nabi wuxuu ka soo tusaale qaaday sida harjir oo kareeto إذا اشتكى منه عضو هداي حون كم إذا حنوصته تداعى له سائر الجسد بسهر والحمى جيرك أنت سكلته وعنا سوجد لقى ما يابا إنه يفرق وحنون تعاوى ومدحو يرهدو أنا واسيحنا فرطها بكاته وحبيق مقصي لو جيرك وسوى ذا الجيدة إسلامك نوع عاوى مركا حلقة فضو ديواته هستا إسلامك وسوى ذا الجيدة حنوك إسلامك هو هيا مركا سي صومالي وسوى في رسدنا داد كينا صومالي ذا دخن كينا يوم فهمي ساي هدافتينا با منهن داد توتشرين لو تلقى منهن با marka soo fiido dad naxariis badan ma fahmaysaa hadaan ama wada joogni hadaan bulshada kale ee dunida aadnaba Soomaalidu naxariis badan lagu shinay yihiin marka uma bislin inaan torture sameeyno uma bislinba markaan fiirin dhaqankeena suuban diinta islaamka ah iyo xiriirka caalamiga markaan fiirino kaliya marka waxaan u baahannahay mar aan ku celiyo wacyigelin baa waana kaliya in la wacyigeliyo bulshada in wacyigelin badan loo sameeyo kaliya u baahannahay waa santa aad baad mahadsantahay haddii ay jirto cid wax ku daraysa waan soo dhaweynaynaa qaybihii dambe doodeena ayaan daawadayaal isla soo gaadhnay waxaana doodeena galabta kaga doodaynaa sharciga caalamiga ah jirdilka waxaana doodeena taabagelisay isla markaana soo qaban qabisay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland maruu Sacdiyo xaggan soo aadaya su'aasha u dambeysay galabta aan ku siinayo sideed isleedahay waa lagu yareyn karaa jirdilka bulshada dhexdeeda in badan baan isla garanay in laga yaabo inuu ku badan yahay isla markaana u egba wax la qabsaday aad u mahadsantahay horta anaga jirdil markaan dhaheena Soomaalida wax badan aan u naqaanaa jirdilka wax yar kooban waa laakiin jirdil markaan dhahno Soomaalida wax badan asoo hoosgali karo caruurtiyo macalinka si xad guduba uu garaacay oo nabarro waaweyn oo muuqda korkiisa uu ku sameeyay sida hore ku soo sheegay gabdhihii awoodooda waxaan ahayn lagu sameeyay gabdhihii haddana ragooda si xad ka baxa u dilay way badan yihiin xadgudubyada marka fiirina Soomaali ahaan haddana kuma baraarugsanin oo waxaas u maleynayno inuu yahay xadgudub qofkii lagu sameeynayo waxyaabaha looga gudbi karo inay taasi yaraato ama aysan dhicin waxa kamid ah in horta bulshada la fahansiiyo qofka inuu xaq leeyahay uu yahay qof xaq u leh in aanan lagu xadgudbin haddii ahaan lahayd cunug yar oo xilligeeda gaarin aan la shaqaalaysiinin macalinka inuusan caruurta nabarro aad u muuqdo ama meelaha jariixooyin weyn uusan u geysanin qoysaska dhisan oo kale in aysan xadgudub isku sameynin oo kale aanan tacaddi loola kicin gabadhii oo kale in gabadhii wiilka qabo adoonsi inuu wax asaga adoonsanayo kale uu arkin
ee tahay qof bilaadan xuquuq leh oo arko oo san xad gudub ku sameeyeen maskaxiyadeed iyo mid jireedbo inta uu geysanin ayadana qoysaska waan kula talinayaa inay tahay waxani wax loo geysto qofka wax dhib maskaxdiisa ku saameynayo waxaan leeyahay dadaalka hadda aan wadno sida hadda media uga sheegeen oo kaleeto in aan badino dadaalada aan islana xad gudubyo laga hortagi karaa in bulshada lagu wacyigeliyo in aan qofka loo sameeynin waxyaabaha uu diidayo dhan laga ilaaliyo aan la dhihin oo hadii lagu sameeyo inuu qofkaasi uu arko xad gudub maskaxiyan loo geysanayo ama maskaxda uu ka dareemayo wax kale wacyigelin badan in loo sameeyo bulshada si wada jirana looga hortago bulshadana looga wacyigeliyo xadgudubyada loo geysto ama tacadiga maskaxda midka jirka iyo mid kasto loo geysto bulshada waan ku siinayaa waxaan rabaa in isla su'aasha mudan aadan aad iyadana ka hadasho Marwo Sacdiye waxay ku nuuxsatay in loo baahan yahay in bulshada wacyigeeda arrinkan ku aadan in sidan si ka wanaagsan mar haddii horeen aan u sheegnay in shuruucdii iyo qawaaniintii waxay ka qabaan ay caddahay xagee buu ka jiraa gaabiska in laga yaabo in falkan iyadoo aan ognahay inuu mamnuuc ka yahay ama shuruucda oo dhan diinta hadday noqoto dhaqanka hadday noqoto iyo xagga qaanuunka haddaan eegno ama xiroosadyada ay mamnuuc ka tahay xagee buu ka jiraa gaabiska sidee loo yareyn karaa jirdilka waad mahadsantahay ustaad horta marka koowaad anigu waxaan ahay la taliyaha wasaaradda cadaaladda garsoorka arrimaha diinta qodobkan policy ahaan baan yaan rabaa inaan wax yar aan uga aftiimiyo halkay wax ka khaldan yihiin marka koowaad intaan qodobkeydii aan u dhaadhicin baa waxaa wax su'aal u baahan intay wax ka khaldan yihiin waxay wax ka khaldan yihiin seedaba waxaa jirtaa dawlad wanaagga wuxuu u baahan yahay daadejin waxaa maqan oo aad u malaysaa in uu mugdi ku jiro wada shaqayntii laamaha amniga laamaha fulinta qaybahooda kala duwan iyo shacabka qaybtiisa nugulka ahayd gaab baa ku jira meeshaas marka gabadha siday ka dhawaajisa Sacdiyo walaashay in horta marka koowaad awareness la sameeyo wacyigelin la isu soo dhaweeyo oo ay wada shaqeeyaan bulshadii iyo laamihii amnigii iyo wasaaradihii justice stakeholders ki ahaa anaga ka wasaarad cadaalad ahaan markay noqoto waxaan leenahay laba department mid waxa la ADR ama loo yaqaan garsoor dhaqameedka kiisaskan hadda domestic violence ko kale shaqaaqada arrimaha qoyska garsoor dhaqameedka arrimaha shaqaaqada isfuriinka meelaha u badan xagashada ka imaato jirdil marka laga hadlayo ma aha qof xabsi in lagu jirdilay inaan ku cararno ma ogtay waa in horta jirdilka xaafaduhu ka dhaca marka waxyaabahan wixiiba criminal case weyn aan ahayn inta badan anaga halkaas noo furan oo ay howlahan mar walba mideeda kale xafiiskaas anaga noo furan ADR-ka ama garsoor dhaqameedka waxaa gacanta ku hayaan odayaasha dhaqanka ay bulshada aaminsaneed dadka wadanka 20 iyo dhowr sano military ba haystay 30 sano ugu dudusana dadka marka haddana dadku waxa loo keenay nidaam federalism okay inay fahmaan dawlad wanaag inay fahmaan hab dhaqanka dawladda iyo qaabka u jaan qaadaysa laamaheedii kala duwan horta way adagta wax badan baa u baahan in dadka loo aftiimiyo okay sida awgeed anaga marka laba qaybood baan leenahay marka waxaan leenahay qaybtan garsoor dhaqameedka oo aan ugu talagalnay bulshadii sida access to justice ay u helayeen cadaalad la heli karsanaan iyo cadaalad ixtiraam iyo kala dambeyn si loo helo qaybta saa jirta oo arrimahan ayada naftirkeed ka shaqeyso mideeda kale waxaa jirta qaybta xabsiyada waan leenahay correction oo wasaaradda ay dhiil garayso policy level aan macnaha umbrelladii guud waa ama daladii guud okay qaybta xabsiyada usbuuc had aan ka soo baxno kale waxaan ka wadnay barnaamij awareness oo ay unsom naga taageertay waan macnaha dadkii in ay naftirkood ay helaan macnaha waxbarasho vocational training yar inay helaan inay daawooyin helaan mideeda kale legal aid xitaa dadka in macnaha waxaa jirta qolo la dhaho macnaha Jubbaland Bar Association ama guddiga ururka qareennada Jubbaland naftirkood wada shaqayn baan leenahay marka barnaamij xitaa waxaan hadda abaabuleynaa oo wasaaradda ay dhirinaysaa sidii dadka aan awoodin in ayaga ay qareen qabsadaan
ama aadan garanayninba meel laga jiro qof baa dembi geli meeshii legal aspectigii loo mar lahaa ama sharcigii loo mar lahaa si bal waxaan looga gaashaaman lahaa ama looga gudbi lahaa aanan garanaynaa jiraa marka annaga barnaamijkan si loo kaabgareeyo oo loo xakameeyo labadaas qayb bay wasaaradda leedahay taas waxaa dheer wasaaradda judiciarygana way la shaqaysaa maxkamadaha qaybaheedu kala duwana attorney generalki dhammaantood macnaha waxay la leedahay wada shaqayn marka stakeholderadaas waxaa kaloo annaga si toos iyadana aan ola shaqaynaa ministry of gender wasaaraddan haweenka macnaha waxaa bahwadaag baan nahay wasaaradda waxay leeyihiin line ministries alignment isku xirin bay leeyihiin ayaga naftirkood oo waxyaabo fara badan oo cross-cutting uu ka dhaxeeyo ugaas ma fahantay cross-cuttingkaas marka waxyaalaha isdhexgelaya waxaa ka mid marka waxyaabo fara badan juvenile justice-ka waa ka mid ilmihii yaryaraa macnaha genderki oo arrimihii qoyskii iyo waxyaabahan oo wasaaradda hogaaminayso marka annaga si howlahan dadkii ay xal ugu helaan anoon warka kugu badinaynin baan laba qaybood baan u haynaa marka qayb waa garsoor dhaqameedkii oo dadka ay ku kalsoon yihiin inta badan qoryo ma wataan waa odayaasha dhaqanka marka access bay u leeyihiin dadku way tagayaan waa laga dhagaysanay wax badan bay xaliyaan midda kale waa laba xafiis mid haween ah iyo mid rag ah waa loo kale waxyaabo fara badan dumarka aanay rag u sheekarin yaa jiraan markaan ogaanay saasaan u samaynay qaybta correctionka weyneed ee central police station iyadana la shaqaynayso na waa jirtaa marka labadabana directional la siinay legal aid support baa la siinay qofka wacyigelin sharciyeed baa la siinay kaalmo sharciyeedna waa la siinayaa marka anagu intaas baan ka wasaarad ahaan intaasaan ka qabanaa arrintaas aad baad umahadsan tahay mudane waxaan soo aadaya xagga Kamaal aadan doodiisa inta u badneed waxay ahayd wacyigelinta bulshada ma aha in kaliya lagu koobo shuruucdan sida u baran lahayd bulshada waxay sidoo kale u baahan tahay in laga wacyigeliyo wada shaqayn si ay ula yeelato laamihii hawlahan ku shaqo lahaa ay ka mid tahay fulinta oo booliska iyo qaybaheeda kala duwan iyo garsoorka sidoo kale bal aragtidaada waxaad ku dareysana waan soo dhaweynaynaa sideed kula muuqataa in lagu yareyn karo jirdilka waa mahadsan tahay horta waxaa jira qodob aad wanaagsan ee wasaaradda cadaaladda Jubbaland samayso oo aadan qolosh hadda sheego ah garsoor dhaqameed bulshadu suu honorable aadan sheegay qofku inuu waxa laga inuu dambi gala laga yaabaa asagoo dambi galay laga yaabaa ninkuu dambi ka galay asaga markii la isku fiiriyo inuu asaga saxnaado hadna ma garan karo xaqiisa qaab u qaato ma garan karo marka haddii la yiraahdo maxkamad tag qareen qabso oo laalaawashadaas wuxuu u arkaaba inay wax ku lumayaan marka in loo qabto garsoor dhaqameed wax aad u wanaagsan waa ama taa dawladda iyo waxay ka qabtay iyo honorable aadna sheegay anigu laba midaan ku daraa midda koowaad ah in la sameeyo general awareness si good in loo sameeyo yaa sameynaya marka waxaa sameynayaan dad well educated ah oo shuruucda aad u yaqaana community-gana aad u yaqaana community aad u yaqaan waxaan ka wadaa dumarka iyo dhalinyarada odayaal hadii lagu daro way dareemi karaan wax bulshada ka jira haddii la yiraahdo sababihii loo sameeyay garsoor dhaqameed waxaa ka mid ah in dadka qaar aysan intay maxkamad tagaan waxay rabaan sheegan karin xishood baa jiri kara wax baa jiri kara laakiin haddii la yiraahdo odayga xaafadda loo tago wax walba loo sheegi karaa ma fahmaysaa midda in la sameeyo general awareness in la sameeyo cid samaysa inay noqoto well educated people well educated danka sharcigan aad aqoon oga leh community-gan yaqaana community-ga aad u yaqaan dhaxgalka yaqaana dadka socialka ah midda labaad waxaa waa in la sameeyo community awareness in community loo sameeyo community loo sameeyo dadka sameeyo xaafad waay in xaafad loo sameeyo xaafadda faanole waxaa laga yaabaa qaabka looga fahansan yahay waxaan inaan xaafadda farjan looga fahansaneen naysa marka in loo fiiriyo xaafadan waxaa jira xaafado magaalo ku soo kordhaayo ma fahmaysaa xaafadahaas way ka baahi badan yihiin xaafadaha kaleeto markii sababtu waxay tahay dadka ku nool xaafadaha aqoon ahaanna ma dhisna dawlad ahaanna ma fahansanaba dawladda marka ninka kale xaafadda kale ku nool waxa laga yaabaa inuu at least samhiinta ka haysto wax la yiraahdo qareen iyo maxkamad marka midda labaadna u baahnaan lahayn in la sameeyo hadduu ilaahay idmaayo community awareness in la sameeyo cidda sameyn lahaydna laba shardi laga fiiriyo inay yihiin dad aqoon leh aqoon sharcigana leh aqoonta ma fahmaysaa bulshada iyo qaabka loo dhexgali lahaa bulshadana aad u fahansan waa maasanta
aad baad u mahadsantihiin waxaan mar kale si gaar ugu mahadcelinayaa marwe sacdiye cabdulaahi jeyte oo ka mid ah gabdhaha u ololeeya xuquuqda bulshada isla markaana ka mid ah cilmibaarayaasha u shaqeeya hay'adda SWC ama xarunta cilmibaarista dumarka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa mudane aadan cusmaan qolosho oo la taliyay waa wasaaradda cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubbaland iyo ustaad Kamaal Maxamed Ibraahim oo agaasimaha guud ee machadka tababarka iyo sidoo kale cilmibaarista Kasmaal waxaa sidoo kale mahad gaar inaga mudan daawadayaasha sida tooska barnaamijka bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa كتحنا أنا مقعي واي حواس عبد الرزاق أنا برنامج كذا نسعد سيني أنت كل بدنا برنامج